waxaan maanta aada ugu faraxsannahay inaan tababarka u soo xidhno difcad ka mid ah ciidanka daraawiishta ee Jubbaland oo aan rajaynayo inay gudan doonaan waajibaadkooda shaqo kana faa'iideyn doonaan tababarka la siiyey. waxaan dhageysanayaa hadda qaybaha tababarka ee la siinayey oo intaba u arkay inay muhiim u tahay askariga. ciidanku wuxuu macno leeyahay oo waxaana u sameeyaa oo uu saldhig u yahay bayska dowladnimada. maanta markaad ciidamadeenna fiiriso mujtamaca say ula dhaqmaan iyo dhaqankoodu wuxuu wax badan dadka markii loo tago meelaha ay khawaarijtu joogeen ay wax badan dadku dareemaan nooca dowladnimadu ay tahay, iyadoo askariga naxariista uu u samaynayo ay gaadhay inuu garaamkiisa xataa iyo dawada uu wato iyo biyaha uu wato uu gaadhsiiyo mujtamaca uu u tegayo. waxaa la idinka baahan yahay inaad sida uu yahay tawciyada la idin siiyey iyo tababarka la idin siiyey, ama ha noqoto hab dagaal ama la dhaqanka bulshada ha noqoto, inaad intaba sida ay tahay u gudan doontaan haddii ilaahay yidhaah. aad baan idinku rajaynaya. Soomaaliya oo maanta xaalad adag ku jirta, waqti kala guura, caqabado badan ay jiraan, waxaan u baahannahay inaan dib ugu noqonno, gaar ahaan Jubbaland oo lagu yaqaano isku wadka, dhisidda bulshada, dadka isu keenista iyo Soomaali isku wadkeeda, inaan wax badan shaqadaa ka qabanno. maanta waxaad mooddaa iyadoo cadowgii dhibaato badan uu hayo oo deegaanadii ay waxaysanayaan in dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay u beddeshay macnihii shabaabkii dagaalka iyo ciidankii la dhisayay oo dhan wax siyaasad loo adeegsado. waxaan ka xunnahay 3 bisha Juun iyo 4 banaanbax silmiya oo ay mas-uuliyiin samaynayeen iyo mujtamaca Muqdisho oo dhib badan tirsanaya iyo firaaqa dastuuriga ee dhacaya in gacan ciidan loo adeegsaday oo ciidankii loogu talagalay inay waddanka amnigiisa sugaan ay shabaab ka xoreeyaan inay shaqadoodu noqotay oo loo isticmaalay in lagu caburiyo dimuqraadiyadda, cabirka fikirka dadka shacabka. waa nasiib darro intaa leeg. dowlad dhiska Soomaaliya marka laga soo bilaabo dowladdan saddexaad xilligii Carte ilaa maanta marxaladaha ay soo maraysay waxay ahayd wax is-ogol ah. doorashooyinku waxay Soomaaliya u yihiin dib u heshiisiin, doorashooyinku waxay Soomaaliya u yihiin isafgarad, doorashooyinku waxay Soomaaliya u yihiin hiigsi ay tiigsanayso inay marxalad labaad u gudbi doonto. waayo qofka siyaasiga ee damcu ku jiro marka uu hiigsanayo inay doorasho jirto oo berri sanduuq la tegayo la waxaynayo, waxaa rajada gelaysa ay tahay inayna iman karaynin wax kale oo qalalaasa ama qulqulata. maanta dowladda xilligeedu dhammaaday iyo xasan sheekh oo teeramkii labaad maraya, nin da-ah, waxaad mooddaa wixii oo dhan intuu iska dhaga tiray maanta wuxuu ka shaqaynayaa inay tahay wax taariikhda bog madow uu kaga tegi doono. waxaan odhan lahaa xasanow, dib u xusuuso Soomaaliya meeshay soo martay, dib u xusuuso intaa aad soo joogtay. xaaladdu maanta meesha ay taagan tahayna waxay u baahan tahay waxa la isku ogyahay bay arrinta Soomaaliya ku socon kartaa ee ma keeni karayso anaa idhi iyo xaalad noocaas waxba lagama samayn karayo. nooca dowladnimada ee labada heer ah, federaalka iyo dowladda dhexe, dastuurkii 2012 dastuurkaasi wuxuu qorayaa shuruuc iyo wax la isku hageeyo iyo sida waddanku u dhaqmayo. labada heer ee dowladood waxa ka dhexeeyana waa la yaqaanaa. waxaa ka mid ahaa maalin dhaweed hadal aan dhegaysanaya xasan oo leh ma aqoonsani iyo kan doorashada stateka ka dhacaysa Jubbaland waa mid reer Jubbaland bay aqoonsi uga baahan tahay, dadkeedaana iska leh, wax sharciyada oo dowladda dhexe kaga xidhan ma jirto. hadday noqoto waxaas ma aqoonsanayo, waxa raacaya waxa weeye dee adiguna waxaad lagu aqoonsanaya sababta isagaa maanta waqtigiisii dhammaaday, teeramkiisii ka gudbay, waxa uu maanta ku jira ay tahay xadgudub uu samaynayo. dib ha loogu soo noqdo gogasha, talada dhulka ha la dhigo. kor baan u haynayaa Soomaaliya meeshay gaadhsay waynu ognahay. intaasoo sanaynu dagaal sokeeyo ku jiray. wardhiigley ma aha dowladnimada Soomaaliya. hadduu qofku u arko inay xaafadda uu jooga ay u noqonayso dowladnimada Soomaaliya,
oo xukunku uu yahay xaafaddaa uu joogo oo xukunku uu middaa yahay sax ma noqonayso. xasan wakhtigii wuu dhammaaday. nf talada dhulka dhig, soomaali isugu yeedh, wax heshiis lagu yahay ha lagu wada shaqeeyo. hadday noqonayso inuu qof waliba wuxuu raba samaysto, waxa weeyaan soomaaliya siday hadda isku tahayna waan garanaynaa. waxa isku hayana waa dadkaas soomaalinimada la wada raadinayo. xadgudubta ha la joojiyo. odayaasha soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta iyo dadka shalay kula taagnaa bannaanka, haddaad aduu is dhegaysan weyda iyo waxaad isla soo marteenna maanta ha isku dayin inaad caburin iyo awood ciidan iyo isticmaasheen. talada dhulka dhig. wiilashan yaryarkaa ee soomaaliyeed ee aan ugu talagalay cadowga inay dhulka ka xoreeyaan, ma aha inaan iyaga isu adeegsanoon iyaga dhibaato dhexdooda aan ka abuureen. talada ha la soo celiyo. waxaan leeyahay beesha caalamka, soomaaliya baahida idiin qabteena waa sideedii. haddii cid lagu fiirsanayana dee intaasoo kharash iyo juhd iyo maydaan soo geliseen. cid kastoo soomaaliya dan kale oo dowlad kastoo dan kalena dariiqa saxda ha u soo marto. laakiin anaa idhi iyo sidanaan idhi iyo sidanaan samaynayaa iyo maslaxada dowlad heblo saasay ku jirtaa, soomaalida ma anfacayso. waxaan idiin rajaynayaa guul, waxaan idiin rajaynayaa gobonnimo. howlgalkaasaan gelaynaa, waa tii la inoo egmaday.